يا هيا حكى قاعد عاي هاي أمر إلهي وي ها ما المهم يلا جاي مس هذا اللي قابته 6 سنة اختار ما أده هاي محمي اختار كي ماشي هاي ها واقرته تعرف أنا بيها أول كل شو بنشرتن سوما هذا واحد ذيك إنه تن ويكون تهتي أول بيها كل شو بنشرتن ما قرتها أنا كان ندم سنته وأنا كفي عنتها ميل هو صار لقى فريلا هاي بيها لقوا سو شو أنا يوم قررت شاب أقولي سيد قاعدين ما قرتها وحن عادية أوكي هاشاس إنه نقدون تدبر مناو ضد ولا هاو سوماليات بكوسو دي وين كقدون ميده شاكين أنا نقول هاش أنا نقدون تد ما كهرمنا واي كقدون باشا هاي سيرو في عمل كقدون gabar xaliimo la yiraahdo oo dalka dawladdiisa joogta yaa nagu soo ka dhibtay xaliimo marka ilaahay khayr ha siiyo annaguna waa u duceyn idinkuna u duceeya waay xaliimo qala la siiyo kash ka tabaada la katir idinkana xoogina la xilka yeela waay بسم الله الرحمن الرحيم walaalihii barnaamijka yaa u maqan team oo degmada Galdogob dhaqaaqiyo iyo howlo samafal ka wada halkan gurigan wuxuu ku yaalaa meel wax yar u jirta magaalada Galdogob oo wax badan aan ka fogeyn oo isla magaalada dhexdeeda ah sida daraadeed hadda ka hor aniga iyo Bilaal Maxamed Garweyne waxaan u nimid qoyskan oo aanu kaalmo dad Soomaaliyeed noogu soo dhiibeen aanu u keenay baahidooda ayaanu qiimeynay waa xog wareysanay waxaan ogaanay in weel biyaha ay ku dhaansadaan aanay haysan marka laga soo tago fuusto biyo ah fuusto ay biyaha mataqaanaa ku shubtaan oo qoyskan intan la eg aan ka fargarayn karin biyaha ay u baahan yihiin sida daraadeed waxaan ogaanay in muddo dheer aysan biyaha sahayn karin waxaan u dalabnay hadda ka hor walaalaha Soomaaliyeed inay bal weel ka weyn weelka kan ay biyaha ku shuban hayaan aan u helno alxamdulillah rabbil caalamiin dad Soomaaliyeed waliba gabar Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa joogta ayaa ka soo jawaabtay fariintii aan soo dirnay ee ahayd in haan shanqaad ama saddex qaad miduna aan u keenno waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qoyska kan u keenay gurigoodii aan ugu keenay wax badan baa ka dhimo walaalayaal waana idin la soo socodsiin doonaa anagu waxaan jeclaan lahayn in qof walba oo duruufaha noloshu ay haystaan aan isku dayno in wax badan aan ka bedelno noloshiisa markaan sidaas leeyahayna in la iscaawiyo waa wax quraanka Ilaahay lagu sheegay waliba wanaagga la isku caawiyo qofka wanaagga wada in wax wanaagsan lagu caawiyo sida daraadeed dadka maanta duruufuhu haystaan oo abaaruhu ay saameeyeen waa kuwa nooga baahan garab iyo gurmad muhiim ah Bilaal Maxamed Garweyne ila jooga oo hawshan ila waday magaalada Galdogob intii aan ka shaqeynanayna aan wada shaqeynanay iimaan sidoo sheegay weeye waxa way wax badan aan ku darimayo horta Maxamed Gaaruf oo ku magac dheer kabtan caga caday oo nala jooga oo qurbaha noogu yimid gaar ahaan Dubai iyo Qatar isku soo maray waxaan rabaa iimaan sidoo sheegay walaalahan booyadaas aan u keenay waxaan ku darayaa marka baahida ninkan guriga uu degan yahay waxa weeye waa kiro sida uu sheegay xoolihiina waa ka soo dhamaadeen wuxuu u baahan yahay cunno wuxuu u baahan yahay raashinka macnaha in garab laga siiyo ciyaalka in wax looga ogaado hadee Ilaahay baa marka dadka ibnaadanka ay qofka ibnaadanka baahiisa dabooli kara balse anagu inta karaankeenna ah waan dadaalaynay oo walaalkii Iimaan Maxamed Gaani oo daadiyaha barnaamijkan ah oo aan dhihi karo xumin aad u weyn ayuu ka qayb qaatay ayaan barnaamijkan isla wadnay saaka waa anaga booyada aan yarta u wadnay wiilka walaalkeen wuxuu noo sheegtay inuu aad u xanuunsan yahay oo beerka laga hayo awalna waataan qeyna dhaantayni dirnay marka cid allaale iyo cidii rabta inay ku caawiso lacag cadaan ha noqoto raashin inay ka bixinaysaa noqoto waxay u soo marsiinaysaa teamka yaa u maqan oo ay saddexda xubnood magaalada ka joogan degmada Galdogob Maxamed Gaaruf cigaal kabtan caga cade إيمان محمد جان يعني قاعد بلال محمد إن شاء الله هالكاس نكون حرد إيمان أنت سانو كدر يا ولد الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهد إسكاله سكواي كان هالكان جودجا إيو برنامج كده دهياشة بلال إيو إيمان جاني كوان يا أمغان marka barnaamij waxay wadaan shaqo fiican ma sha Allah awalna waa la socday haddana waan soo gaaray oo boqsheer baan ku soo gaaray ma sha Allah barnaamijkan mid hadda igu cusub maahan hore aan la socday marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isku xirnaadaan oo dadka walaalahooda u abaaraysan oo cudur ku helay
inay qof walba wuxuu ku awoodo uu ku caawiyo tanna adduunkana waa laga tegayaa meesha aan laga tegaynin oo aan laga dhimanaynin waa aakhiro waxaa hormarsatid baana aakhiro ku anfacaya adduunkan waa laga wada tegayaa qof walba wuxuu dhashay asagoo qaawan oo waxba haysan dadka hadda cimaaradaha dhaadheer iyo daarooyinka dhaadheer haysta oo adduunka meel kasta kaga nool waxay dhasheen ayagoo qaawan aan waxba haysan oo saasoo ay tahay hantiba ilaahay siiyey hantidaasna maca daalika markay dhintaan way ka tegayaan oo adduunka bay uga tegayaan marka kaliya waxaa raacaya wixii qofku uu hormarsado camal saalixa iyo sadaqo jaariyada baa ugu hormaraya qabrigiisa marka insha Allah billahi kariim qof walba waxaan leenahay wuxuu ku tari karo dadkan tabaalaysan oo abaartu heshay abaartu meel kasta way ka jidhaa ilaahay baa naga dulqaadi kara waxaan leenahay qof walba meesha jooga ilaahay ha baryo subxaana qaatiraha